السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan kale maanta waxaynu ka eegi doonaa bal waxaad sawirtaa adigoo dhismaha aad degan tahay amaba halka uu gurigaaga ku yaalo aanu kaliya ahayn gurigaaga balse guud ahaanba magaalada aad degan tahay ay ka kooban tahay dhismahan aad adigu degan tahay dhismahan aynu u jeedno gebi ahaanba wixii loo baahnaa si qofka bini'aadanka ugu noolaado waxaa lagu soo wada ururiyey hal dabaq dadka dhismahan degani waxa ay tagaan meesha boolshariga ay khudradda ka soo iibsadaan sidoo kale xafiiska boostada ama nootaayada magaalada iyagoo kaliya raacaya wiishkan inoo muuqda oo hal dabaq ay ku wada yaalaan waxaasoo dhammi inkastoo dhismahan dibaddiisa ay ka dhacayaan dabaylo duufaano wata oo barafa laakiin haddana sidaasay tahay carruurta dhismahan degani marka ay iskuulka tegayaan waxa ay maraan tanalkan dhulka hoostiisa ku yaalla magaaladan yar ayaa waxay ku qarsoon tahay koonfurta gobolka Alaska laba buurood iyo badweynta ayay u dhaxaysaa badka ay ku fadhida gebigiisu waa 1 kilomitir square magaaladan yar dadka degan gebigooda waxay ku nool yihiin hal dhismo kaliya halkan dhisme dadka degan marka ay dhex marayaan dabaqyada dhexdooda waxa iyaga uga dhigan tahay inay marayaan dariiqyadii magaaladooda maadaama dadka magaaladan degan gebigooda halkan dhisme ay ku nool yihiin magaaladan markaad ku nooshahay wax caadi ah ay ka tahay in ninka madaxda waa booliska magaalada aad ku kulantaan grocery store-ka ama boolshariga ama sidoo kale ninka maayarka ka haba magaalada aad iskugu timaadaan meesha dharka lagu meedhay laundry-ga markan maanta ninkan meesha soo booqday waxa uu soo gaadhay halka laga gala magaaladan yar waana wado dhinac kaliya ah waayo 30 daqiiqo hal mar ayaa la bedelaa dhanka loo soconayo halkan wado ayaa ah wadada kaliya ee adduunka ku xidha magaaladan yar iyadoo dabcan laga soo gali karo dhanka badda laakiin dhul ahaan marka laga hadlayo wadadan oo kaliya ayaa gasha kana soo baxda wadadan buurta hoosteeda ka dhex baxda waxa magaaladan laga soo galiyay 8 sano ugu dambeeyay iyadoo waqtigaasna ay dhiseen ciidamada militariga ee Mareykanku marka hore kaliya waxa loo isticmaali jiray tareen ahaan laakiin sanadkii 2000 ayaa gawaadhidana loo furay oo tunnelkan markaad dhex marayso waxa qasaba in dhinacii kalena ku dhaafay maadaama dhinac kaliya ay tahay tareenkiina uu meesha dhaafay sidaa darteed ayaad ku mari kartaa adiguna markaad sidaa u soo dhaafto tunnelkan waxa ugu horeeyay indhaha ku qabanayaan waa dhismayaashan kale iyo waliba doomahan laakiin dhismayaashan dhammaantood waxa loo wada isticmaalaa in lagu kaydiyo kalluunka laakiin halka dhisme ay degan yihiin waa dhismahaas inoo muuqday imika weyn bal gudaha aynu galnay si aynu eegno dhismaha markaad sidaa u soo gasho sawiraantan ayaa ka hor imanaya taariikhiga ee meesha lagu dhijiyey sidoo kale dhismahan waxaa la dhisay sanadkii 1956 waxaana dhistay ciidamada militariga Mareykanka si ay u adeegsadaan waqtigii socday dagaalkii Qaboobay dhismaha ka kooban 14 dabaq waxa ku dhex yaala 196 guri iyadoo guud ahaan dadka degan dhismahani oo sidoo kale ah dadweynaha magaaladan degani ay yihiin 1000 qof dhismaha waxa ku dhex yaala dukaanka boolshariga wax laga iibsado meesha waxa lagu meedho meel wax lagu kaydiyo iyo waliba sidoo kale meel ay ciyaalku ku ciyaaraan dhanka kalena waxa leeyahay iskuul ka yar baxsan dhismaha oo dariiqan isku xidho haddaba dadka dhismaha ku dhex nool mararka qaar wiigaga ay ku qaadataa inay halkan ka bixin waliba waa waqtiyada qabowga uu jiro laakiin wax walba u baahan yihiin dhismahan ay ka dhexeliyaanba qaybtan dhismaha ninkan iminka maraya waa qaybta dukaamada ku yaalaan ee waxyaabaha aad u baahanto dhan aad ka helayso sida dukaankan iminka uu gelayo oo kale salaantan ay hayso waxa yaala alaabtii aad u baahnayd oo dhan inkastoo farmasi aanu ku olin halkan laakiin haddana kiniinada xanuunbiinta iyo waxa aad ka helaysaa qaybtan kale ee dabaqan ku taala sidoo kale waa meeshan lagu meedho maryaha ee qasaaladu ay ku taalo sidoo kalena dhinacan ku xiga ee talaagadu ay ku jiraan sharaabka ku jiro waxaad cabisaa markaad sugayso sidoo kale markaad dibadda u soo baxdan ATM-kan aad isticmaali kartaa oo lacagtaada kala bixi kartaa xoogay markuu soo yaro socdana waxa uu sidoo kale soo gaarayaa nootaayada magaalada oo dhismaha ku dhex taala dabaqa ugu horeeya dabaqan markaad dhex marayso hareerahaaga waxaad ka arki kartaa dabaq walba ama line walba oo guryahan hortooda ku yaala kamarada ku xidhan sida imika notiiskan aynu ku arkayno 24 saacadoodba kamaradan sidoo kale meeshan waxa ku yaala maadaama kamaradahan ay ku yaalaan saldhigga booliska oo meeshan ay leedahay waxaana la yaabaa dhismaha aad ku jirto ayaad ku xidhnaan kartaa haddii aad wax samayso 24 saacadood
qaybtan iminka marka hoos soo daadegana sida aan arkayno dadka ayaa ku kaydsada alaabtooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan xataa gaaladu halkan waxay ka dhex dhisteen kaniisado 2 kaniisadood ba ku yaala oo ay kala samaysteen dadka kala nooca ee noocyada kala duwan ee kristanka haysta dhismaha marka dibadda uga baxda waxaad moodaysaa inuu hal dhismo isku dhigsan yahay laakiin 3 qaybood ayuu kala duwan yahay oo 20 sentimitir ay u dhexeeyaan tan oo sababta loo kala jaray space ka yar lagu kala dhaxaysiiyay ay tahay haddii uu dhul gariir iyo waxaas dhacaan in dhismayaasha aanay wada saameyn oo hal mar aanay wada dumin waayo dhismahan qaabka loo dhisay ayaa ah qaab iska caabinayo dabka iyo waliba dhul gariirka waliba cadeynteedina waa la arkay oo dhul gariir weyn oo ka dhacay gobolka Alaska sanadkii 1964 dhismahan uu ka badbaaday isagoo wax dhibaato aad u weyn aanay gaadhin iyadoo waliba dhul gariirkaas waa mid kamid ah dhul gariirada ugu waaweyn adduunka oo ka labaad u noqonayo awoodda dhul gariirkaasina waxa lagu cabiray inuu ahaa 9.2 oo ah magnitude-ka lagu cabiro dhul gariirka iyadoo waqtigaas 13 qof oo kaliya oo dhismaha dibadda ka joogay ay naftooda ku waayeen taasoo ay wax yeelasay tsunami-du markaad raacayso wiishka sida ninkan iminka raacayo waxaa ku yaala 15 badhan inkastoo dhismuhu ka kooban yahay 14 dabaq labada dabaq ugu sarreeya waxaa loo adeegsadaa in la dejiyo oo sidoo kale ayna ku quraacdaan dadka dalxiisayaasha ee soo booqda magaalada yar ee dhismaha ka kooban qaabka kaliya dalxiisayaasha halkan ku soo gaadhaan waa inay tigirka markabka soo iibsadaan oo markabka meesha ku yimaadaan sidoo kale meeshan ama dhismaha waxa ku dhex yaala hodheel yar haddaba qolkan oo ah qolka ku yaala dabaqa 15aad oo dabaqeen badhankiisa ka soo aragnay wiishka ah waa qolka ay adeegsadaan ama ay ku kulmaan oo go'aamada ay ku qaataan dadka guryaha kula dhismahan sidoo kale waxaan odhan karnaaba waa meesha laga maamulo dhismahan oo dhammaystiran haddaba carruur gaadhaya 35 carruura oo da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 18 jir ayaa dhismahan ka dhigta waxbarashada oo qaabku dhismahan u dhisan yahay uu u ogolaaday inay iskuul helaan iskuulku dhex yaala dhismahan iyagoo carruurtu marka ay u baahdaan in iskuulkii tagaan ay tanalkan soo dhex marayaan iyagoo waliba xidhan dharkii ay ku soo tooseen haddii ay doonaan maadaama meeshu ay isku xidhan tahay meesha yar tanalka uu dhaxeeyo carruurta halkan wax ku dhigatana iskuulkii iyo gurigoodu isku dhex jiraaba oo iskuul guriga ka baxsan mabay aragba weli halkanna waa halka ay macallimiintu ugu diyaariyaan ardayda cuntada oo dhammaantood ay ku wada cunaan marka dambana galaasyada uu iskuulku ka kooban yahay sidaad arkayso waxaa loo kala sameeyey da'da ay ardaydu kala jiraan oo arday walba da'diisa galaas ku habboon ayuu leeyahay haddii ardayda ku adkaadaan homework inay galaas kaga dhex shaqeeyaanna waxay garaacayaan qolka ku xiga oo ay ku jiraan macallimiin kale haddaba markaad dhex marayso magaaladan yar ee dhismahan ku dhex taalla waxaad arkaysaa dadka ku nool inay aad u kala duwan yihiin oo dad fara badan oo meelo kala yimid inay yihiin maadaama dadka halkani ay badankooda u yimaadeen si ay uga shaqeeyaan warshadaha kalluunka ee gobolkan Alaska ka jira oo ay ka kala yimaadeen gobollo kale iyo jasiirado kale dadka halkani waxay iskugu jiraan sida ay islaantani sharaxayso dad Samoa ka yimid qaar Filibiinisa qaar Mareykanka u dhashay sidoo kale ardayda iskuulkan dhigtaana way kala wada duwan yihiin oo sida ay gabadhani sheegayso haddii ay isku dayaan in happy birthday ay ku luuqeeyaan in luuqado kala duwan ku kala luuqeyn karaan taa macnaheedu oo ah halkan waxaa laga hadlaa luuqado kala duwan haddaba waa dhismahan yar ayaan u jeedno meeshan waxay lahaan jirtay sida islaantan ay u sheegayso clinic ama pharmacy dabaqa 3aad ayuu ku wali jiray aad buu wanaagsanaa siday sheegayso sidoo kale islaanta kale markuu weydiiyo kirada inta ay ku galaan meesha guryahan waxay u sheegaysaa in halkii qol uu yahay ilaa 700 labada qol 1,000 ay yihiin 3 qol ay 1,200 noqonayaan sidaasoo kale weliba ay ku jiraan waxyaabaha aad u baahnayd oo dhan markana waxa uu gelayaa mid kamid ah guryaha uu ka kooban yahay dhismahani isagoo gudihiisana kala tustoon waxyaabaha yaala markaad sidaa u soo gashana kajadan meesha banaanka ku taalla ayaad arkaysaa sidoo kale qaybtan kale waxay ka kooban tahay 2 qol haddayna qolalka galnana waxaan arkaynaa in dadkan ay isticmaalaan weli CD-yo iyo sidoo kale cajalada kaaseedka loo yaqaano sidoo kalena TV-yadooda waxaad ka arki kartaa in dadkan ay 20 sano dambeeyaan oo 20 sano ka hor waxaan la isticmaali jiray sidoo kale dhanka kale farniijarkooda iyo waxa guriga u dhex yaala dad aragto waa wax qadiimiya marwaxada waxaasoo dhami guriga nimka uu ku jiro in la iibiyo ayaa la sugayaa oo ninka iibsanaya $175 buu siisanayaa markana sida uu ninkan buuran weydiinayo wuxuu ka odhanayaa waxyaabo marka halkan lagu nool yahay ay meeshani ku xun tahay bal noo sheeg wuxuu odhanayaa dabcan meeshani dhibaatadeeda iska leedahay maadaama meel adduunka kale oo dhan ka go'an ay tahay oo aanad dibadda iyo waxaa u bixbixi karin dadku waxay aaminsan yihiin inay xabsi iskaga jiraan oo prison of whittier bay dhahdaan sida ay garamaantooda xagga dambe kaga qorteenba
sidoo kale haddii aad rabto inaad magaaladan yar dibadda uga baxdo waxaad ku qasban tahay inaad bixi karto waqtiyada ay magaaladan furan tahay sidoo kalena aad soo noqoto inta ka horeysa 12 iyo 15 mirir oo habeenimo ah waqtigaas oo ah waqtiga la xidho tunnelkan laga galo magaaladan yar dadka haddii waqtiga ay dhaafaan gawaadhidooda ay iska dhex seexdaan oo magaaladan ma soo geli karaan ilaa laga gaadhayo waqtiga furitaanka oo 5 barhka subaxnimo ah sidoo kale haddii qof meeshan wax ka sameeyo sida islaantani sheegayso waxaa lagu xidhaa tunnelkan oo meel uu baxsan karaa ma jiro haddii halkaa la xidho dhinacan badii baa ka xigta dhinacan kalena buurtii markaa sidaas ayaa lagu qabanayaa alaabaha halkan yaala lacagtooda way ka qaalisan tahay alaabaha kale markaa sidaa darteed qofka haddii uu rabo in waxyaaba alaab jaban soo iibsado magaalada uu iskaga baxaa oo magaalo kale ayuu kasoo adeegtaa labada nin siduu weydiinayo bal ka waran haddii xaalad degdeg habeenkii saqda dhexe timaado ka warama ayuu ku odhanayaa waxaana u sheegayaan in gaadhiga damdamiska iyo ambalaaska xasiin ay firi u tahay inay markasta bixi karaan ama sidoo kale haddii ay tareen meesha maraya waqtigaas kusoo beegmaana tareenkaas ayaa la saaraya qofka waxaana sidoo kale weydiinaya inuu maqlay in gawaadhida iyo waxaas loo furay meesha inay soo galaan 2000 intaa wixii ka horreeyay maxaad isticmaali jirteen ayuu ku odhanaya waxaana u sheegayaan in tareenkaasun dadku ay raaci jireen waqtiyada qaarna waxaa dhacday in dhagax weyn uu isku xidho meesha tunnelka sidaa darteed tareenku aanu soo mari karin mar ayay dhacday sida ay gabadhan u sheegayso oo 3 bilood aanu tareenka la raaci jirin dhanka kale dadka magaalada yar Whittier la yiraahdo degan waxay ku qasban yihiin inay mararka qaar iska ilaaliyaan madax kutida madow ee Black American Bear loo yaqaano taasoo marmar soo weerari karta kuwaasoo gaar ahaan imaada waqtiga xagaaga ama samarka meesha yar marka la gaadho jiilaalka qabow aad u daran iyo temperature-ka oo aad hoos u dhaca ay la kulantaa kuwaasoo gaadha -5 degree sidoo kale meeshan waxaa soo mara oo marar ka dhaca dabaylo duufaan wata kuwaasoo ku soconaya xawaare gaadhaya 95 kilomitir saacadiiba dabaylahan oo geedaha soo ridi kara sidoo kalena waxaa ka daa baraf aad u xoogan kaasoo dharar ahaan gaadhaya 5 mitir waqtiyada qaar dhaqaalada magaalada yar waxa uu ku tirsan yahay dalxiiska kalluumaysiga kaargooga isgaarsiinta ama transportationka iyo sidoo kale adeegyada dekedaha meeshan yar si sanadlaa waxa uu soo booqda dad dalxiisayaal oo gaadhaya 800,000 magaaladan yar Whittier lagu magacaabo waxay ahayd meel istiraatiijiya oo Mareykanku isticmaali jiray ama ciidamadooda ay adeegsan jireen maadaama biyaha meeshan ay biyo aan fadhiisan oo qoto dheer yihiin oo waliba dhismayaalahan iminka la gelinna meesha uu ka dhistay laakiin markii uu ka guuray dhismayaashaas lama galo waa la iskaga yimid oo dabaqan iminka ayuun baa la galaa muuqaalkan haddaba saaxiibayaal halkaas ayuu ku egyahay haddii aad xun ka faa'iiday fadlan subscribe to noo saar muuqaalkana like saar aad baad mahadsantiin